aabuhu waa qayb weyn oo muhiim ah markii la joogo korinta dhallaanka ama carruurta waxa uuna sidoo kale ka qayb qaataa farxadda qoyska muuqaalkana waxa aan kuula wadaagi doonaa aabbayaal waxyaabo aan caadi ahayn u sameynaya carruurtooda kuwaas oo ay carruurtuna aad u jeclaysanayaan balse saaxiib inta aynu muuqaalka gudaha u gelin like saar muuqaalka haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir aabbahan iyo gabadhiisa waxa ay ciyaarayaan ciyaar aad u xiiso badan gabadhuna aad bay u jeclaysanaysaa balse waa laga helay ciyaarta oo wejiga ayaa bootarkii loo geliyey aabbahan iyo wiilkiisa aabbuhu afka ayuu kala qaadayaa wiilka yarina waa mid isaguna ka daba dhahaya oo sidii aabbuhu sameeyey ayuu samaynayaa aabbahan waa mid canugiisa kor u tuuraaya ilaa iyo masaafo dheer inkastay xoogaa cabsi leedahay haddana marraba ma ahan mid ka cabsanaya inuu canuga ka dhaco oo kalsooni ayuu isku qabaa aabbahan waa mid canugiisa dusha inta saartay si kal iyo laabaha u ciyaarsiinaya wax uuna ula ordayaa sida inuuba faras saaran yahay ilmaha yarina aad buu ugu raaxaysanayaa waxaas wiilkan iyo gabadhan waa kuwa loo xiray shaaribo awoowayaashood xitaa aysan weli yeelan waxaana sidoo kale macquul ah in kaamiradu tahay waxa carruurta shaaribku yeelaya si kastoy tahay waa muuqaal fani ah aabbahan waxa uu gabadhiisa saartay meeshii lagu aalimiinteynayay waana mid ku aalimiinteynaya halka gabadhu ay ku raaxaysanayso aabbahan waxa uu soo xirtay dhar boombale ah waxuuna la ciyaarayaa gabadhiisa midaas oo ay ku socoto ciyaartu wiilkan yar waa mid aad ugu bogaya sida aabbihiis gaariga u wado waxaadna ka dareemaysaa farxadda iyo qosolka wejigiisa ka muuqata carruurkan waa mid loo xiray dharkii sbayderman ama atooraha caaracaarada wax uuna dareemayaa in derbiga uu ku socdo sidoo kale waxa uu u duulayaa isla sidii aabbayaashan allaha noo dhaafo aabbahan waa mid carruurtiisa kuwaas oo iskuulka ka yimid waddada ku sugaya weliba si ciyaar iyo farxad ay ku dheehan tahay isaga oo soo xirtay dharkii hooyadood canugan waa mid qayb ka ciyaaraya biyaanada aabbihiis ciyaarayo aad ayuuna ugu raaxaysanayaa gabadhan waxa ay aabbaheed u xirtay dharkii hooyadeed intaas uguma aysan ekeenine xitaa waa mid meek abkii ugu dartay aabbahan waxa uu dheelsiinayaa canugiisa wiilkan yar iyo gaarigiisa waxaa gadaal looga xiray cagacagafta beeraha lagu fasho sidaas ayaana loo jiidayaa kani waa kii igu qosolka badnaa aabbahan waxa uu xirtay wejiga canuga hooyadiis sidoo kale masasadda ayuu oga dhigayaa naas waxaan isleeyahay waa qaab wanaagsan oo carruurta caanaha lagu siin karo marka ay hooyadoodu maqan tahay ma xiisaysaa muuqaalada noocan oo kale ah oo ma soo badiyaa balse saaxiib ha hilmaamin in aad muuqaalka like saarto haddii aad nagu cusub tahayna aad nagu soo biirto